وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء وحي لورنا ويرادين waxaan sii xoojinayaa in intii la sheegay ugu horeyn nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay abghadu nnaasi ila allahi halaath ilaahay dadka ugu necab yahay dadka saddex weeyaan waa saddex dunuub waaweyn galay marka gaalnimadii waxaa laga yimaado abghadu nnaasi ila allahi halaath ككواد نبي وحكو تلمامي ملحد في الحرم ما الذنوب تواوين كو قليا حرم كقديسي ذنبي قويني دي شنو ذنبي إن حرم كإلهي القصي السمايانا وذنبي لبعض كاسيو حكم دي هيبو نبي قولي صدح دا إلهي ونعبيه وحكى له صدح دا إلهي ونعبيه كم دبو نبي تلمامي مبتغ في الإسلام السنة الجاهلية قف إسلامك لحديثة كربو وضدي جاهلية دين وضا رقم دي الدين تكسهر شيء وللربا إنه إسلام نمضى صيدح وضا ها مسلم إسلام نمضى سوى هستا لكن هذا وحي جاهلية دو كل رقم شرتو ولي كنت كسيتا أو حربا دقا كاسين الصعدة waxaa aad moodaa inagu ka Soomaali ahaan dad muslimiin abcan jaddin ahayn inta taariikhda Soomaaliyeed la garanayo dad Soomaaliyeed muslim bay ahaayeen Soomaali diinka la haysata maynan maqal inta muslim ha ahaadaane haddana waxaa jira dhaqamo diinta aad uga fog waynu dhex wadnay oo reeraheena iyo qabaa'ilkeena iyo dadkeena u ahaa xeerar dhaqamadaasi waxay keenayeen inaynu ka mid noqono marka kuwanuu nabigu sheegaya uu leeyahay mubtaghin fi lislaami sunnat aljaahiliya dad islaamnimada ku dhex raadinaya wixii jaahiliyadu ay lahayd masaa'ilkan uu sheekhu sheegay cabdinaasir مثلا مجهن يوحى كصابسن يحرر كانوا كدجسني دوا إسلام نمدي إنه وح كلا نحوضنا مركي اللي سوعدية وحلا سوشيء واشلان هذا غير الصوماليات أعقاش ودون الشرقة بطي سيمي مركب مسألة تاجنت هذا الصمم الوفولينية وحلا جايبين عدد أقبلين أما ضد وضعني وحنا عادة إنه هانجست والله وضع يكوي هذا لكن إذا بلا بشرين غير كودي ويسوي يارين علماء دودية وحجرة كودية وهي الكود بوسي يارين وروح الدين تمو كلام حين وخيال لا بلا سويدي ما أنت عن حير كده جسن لأنه هور حير الرسالة هين تكوا برقم بصاقري وحيدون طبعا نقطة قال دي صح وحيدون طبعا نقطة حين ما أنت كيال له وحيقوا أنصدن وحي إلهي ينسود شيئا كيال ويكون نقيل reerkiina wuu wada qaatay odayna kuma qasbin cidana kuma qasbin waa tala reer gaadhay oo intuu reer tashaday ay gaadheen inay qaataan wixii ilaahay uu jiday la yiraahdaa agoonka yar Soomaali mesela dilku ma dhamaado sababuhu dhamaan way xeerka ma kamid ah inanka yar ee aabihii la dilay ama walaalkii la dilay ee odayaaltay fadhiistay yiraahdeen ninkii waa cafinay isaga waxba la weydiinin ama la jajuubay magtii markii la qaatayna la yiraahdo adiga laba halaad baa kugu soo hagaagay aabihima laba halaad buu kaga sabrayaade Soomaha uu sida intuu ama qaan gaadhayo ama mid cidla marayo uu ka helayo uu sugaya waxana aanad u dhamaan weyday iyo dilkan u dhamaan waayay wax weeyaan de qofka weynu jujuubno qofna mayna sabirsiinin laba midun bay ahayd inaynu qofka qisaas u ogolaano oo yiraahdaa baahinkaas waa dilay hal loo dilo oo qisaas aqbalo iyo wuxuu ku sabray inaynu siino nidhaano war boqolka geela ka hayso waad iska badhaadhiya cafi dadka oo marka uu arko nin aabihii calala qal hawaaye wax haysta laakiin geela reerku qaybsaday isaga xoolo uma aha geela reerku qaybsaday isaga xoolo uma aha wuxuu ku sabraa marka meesha ma yaaliin
waxaan aanadu inooga dhammaan weydaan waxaan wax ka saaraya xeerkeennan xeerkan aynu ku dhaqmayna inuu yahay waxaan aanadu u dhammaan weyday qoysna u sabri waayey 40 sano ka hor mid la dilay uu leeyahay reer hebel baa dilay reerkeegii marka laba mushkilaad taagano kii reerka ninka ka dilayna wuu dulmiyey tolkiisii magta ka qaatayna waa dulmiyeen labada qoloba waa ku dulmiyeen kii abaha dilayna ku dulmi wixii laga qaatay kuwii ku diidayna dayana ku dulmiya agoonkana laba jeer buu markaa dulmayay marna reerna abihii buu dilay reer xoolihiisii buu qaatay marka waa laba jeer oo dulmiya idan waa laga yaabaa dadkiina halka fadhiya iyadoo sidaa loo qaybsano inaydan ugu timaadeen oo inaydan xeerarkan idinku dejin laakiin dee rag baa tihiin xeerka waa la bedeli karaa reerkii xeerka lahaana waa loo talin karaa waana la shirin karaa diinna waa qaadan karaa maan arag anigu dad soomaaliyeed oo meel isugu yimi oo wanaag ka shiray oo isku diiday maan arag dadku hadduu wanaag ku shirayo oo markuu shiro isugu yimaado laakiin iyadoo dhibtu taagantahay haddaad shiriso waa mushkilad iyadoo nabadu taagantahay roonta intaad shiriso inaad tiraahdo war waxaa berri maxaynu ka yeelnaa xeerkeennii hore kaasoo ahaa diintiina saasay sheegtay maxaynu ka yeelnaa inay isweydiisaan dadku uu qaadanaya kaasi waa qodobka hore uu tilmaamay sheekhu qodobka labaad ee uu sheekhu tilmaamay ee nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa jira erayo anas ibnu maalik uu leeyahay khudbad kasta uu nabigu jeediyo wuu jeedin jiray khudbad kasta oo nabi maxamed noo jeediyo buu yidhi weedhaha kama tegi jirin laa amaanata laa iimaana liman laa amaanata lah walaa diina liman laa cahda lah nabigu wuu yidhi mar kastoo khudbadaynaya wuxuu odhan jiray iimaan ma laha ciddii ammaano lahayni diin ma laha ciddii aan ballan lahayni ayuu nabigu nagu odhan jiray buu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ammaanadu way kala weynti ammaanada maamulka ugu weyn cibaadadeeduna waa ammaano ilaahayna saaray oo laynaga rabo inaynu gudanno xoolaha bini aadamku waa ammaano laakiin maamulku nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة هذا أمانة لنطه قيامه هناك بالنبي مرة سيدة إليه رسولك سيوسي ضيع مساء إذا وسد الأمر إلى غير أهله ونبوة الماء أمانة واحد ضيعته مدان مضنين مرة ثلاثة الله سيئة ضدك مدح الله قدوه ما أنت الصومالي دسي شوفوا شيء يدكم بمدحوها haddaad adigu tuug soo saarto iyo mid wax boobaya aakhiraadna waa lagu qabsanayaa waayo adaa boobka ka markhaati ahaa adaa rabay in wax la boobo minaadaadba xoolahaagu u dhiibateen haddaad tidhi xoolaha ummadda ha loo dhiibo adigu maad u dhiibateen waxaaga ilmaadeer waatiin tol waatiin isku reer waatiin laakiin waxaaga umaad dhiibateen laakiin waxaad ogashay waxa ummadoo dhan in loo dhiibo dee waa laba tuugu maatee waa tuug iyo tuug kalkaal waa laba shaqada waa wada wadeen weeyaan runta markaynu isu sheegno haddaynu inagu daacad ka nahay dadka samahiisana doonayno waa samayn karaynaa waayo dadkaynu xilka keennaa dee rag ordayo hunguri wada waa kuu imanayaan waa hubaaltaasi mid lacag sita waa kuu imanaya mid ordaya waa kuu imanaya laakiin aday ahayd intaad reerka eegtay inaad tidhaahdo warkaasaa ugu daacadsan oo ilaahay dartii dadka u cadaalad samaynaya cadaaladdu wayna wada gaari lahayd marka caqal walba hadduu kaa keeni lahaa soomaaliya way kici lahayd waa kufte waa kici lahayd cadaalad baana ina deeqda kani wuxuu soo boobaadna wax ku tari maayaan laakiin innaga waxaa ammaan noqotay tuuganimada سادرادين إن إيران كهبل والله لبس النضاد بود ماشي كشقة يورر كينا قربوا ولسه يعني يرر كينا جامعة ودرة وتوجو واحد كوا مانسة حتى اللي بدأ توجو تقفك عادي قال الحضارة كفي عن ويقفك عادي قال الحضارة حلقة بلد ويسوع لسه إن تراوريه ويعفي بريبان واحد لا ضاي طابطي 8 مليون وقفوا حدا هداد حدا آخرية كاسارية
10 milyan oo qof oo agoon iyo mid jaban iyo mid indhala iyo mid baaba'san bale ilaa 10 milyan bay intii ka dhaxaysay 10 milyan wuxuu qofkii qaatay aakhira si uu badbaadaya yaa cafinaya adiga waxaan ku yeelo ama ka qaato waa ku soo badheeri kara wariyo si ka cafi waa ku celin kara si uun baynu wada xaajoon karna laakiin 10 milyan oo qof wuxuu haday kugu tageen ilaahina wuxuu leeyahay waman yaghlul yati bima ghalla yawm alqiyaamah cidi waxada qululku waa xoolaa la wada leeyahay cida wax ka xada أما فيجي جهات هذا أنا مالك بيت المسلمين هذا ما حد وراه ومن يغلل بإلى هير عدي وحدا يأتي بما غل يوم القيامة وهيدا أن توجد الدوينه توجد كلوي كجد السنتي وحيمانا يا وحي وحدا يسوي تورتك سيدا قيامة كنتم كسنة دتك وتاجي هي بنك قيامة ليس حسابنا يو هذو أور حدا يدشوا أورك كسارين يسوي قيلنا يا ولبا هيدا هذا حديثك وحشاقي يا أورك يسوي عضله عباضية ويدك على الرباين لا تصيه يوم العرض عبتي سيري مغط كيرو الحظا يسوي دوش كسارا لو يمنيا 7 أرضين يدو دوش كسارا وحا علامة أبايدا هذين قف كستو توغا نوع عاسية قلي يسوي تورتو كستيرو يمادو وحان لي مركها ورسو مالي مدي بدنا runta haddii la sheego oo dunida loo eego iyo waxa ka jira ma dhibadna laakiin laba ceebood baynu leenahay in farsamayn kari weynay laba ceebood baynu farsamayn kari weynay bay leenahay ceebta qabiilka ku saabsan haddii la wada wax soo door mid wax boobi kara inaad meesha geynayso haddii la yiraahdo cadaalad samee tolka inaad gar iyo gardarraba u heeliso وأنكودا لقى صومرين حانا يهيد إنه عدالة حقا قبلوا طول كان ينادوا عدالة سميسو ضدك كلام مسلم كان ينادوا عدالة سميسو هدينو قبيالات حلو هلو أما مكتئد هالنقطة أما حيركيد هالنقطة أما سيو حقي بسنة هالنقطة أما عدالة رادين تيد هالنقطة هدينو حلو هلو سوالي حلوة وهلينا كاللبادنا ومد وضيدي هورين تاسي حلو رادين ينكو صابيري هو بالود dadkii hore way naga waxyar way naga adduun yaraayeen Soomaalida maanta joogta ka adduun badan Soomaalida hore odayaal waaweyn oo Soomaaliyeed baan xabsi bari ku wada jirnaa sheekeynay marka waxa ka sheekeynay magaalooyinku say ahaayeen iyo iyagoo ciyaal yar yar in garow baa la karin jiray bay yiraahdeenoo fuudka garowga ka soo hara ayaan weydiisan jirnay kuwa hudheelko fuudkaasay dooxa nagaga aasi jireen bay lahayn fuudka xataa noo diidi jireen fuud garowba ayay naf bidayeen Soomaalidu maanta ay xoolo badantay maanta maalay ka xoolo badantay ma jirto inkastoo problem haysto laakiin Soomaaliga hore cunada ceeb buu yaqaan aquureedna gaajo ka doorbidi jiray isagoo baahanna wuu seexan jiray ninka waayeelka ama ninka waxgaradka ama qofka magaca leh isagoo waxba afka saarin cunaduna kuma badnayn oday Soomaaliyeed odayadii Soomaaliyeed ka tiri jiray waxa la sheegay oday baan ku yiraahday suuq gamaad iska deysay doonkaas ugu yiri hebel nin la yiraahdo oo reer hebel u ahaa odaygooda bisha Ramadaan buu ugu yiri bisha Ramadaan oo dhan laba wasaladood oo hilib iyo 8 koob oo subag u cabi jiray buu yiri shanayta horena fuqali jiray wasalad buu ka cuni jiray inta ku xigta koob subag u cabi jiray ninkaas koob subag u cunay intuu ka dhigtay iska seexanay ama taa kala hay oo soomay waxaan uga dan leeyahay iyadoo baahidu taalo ay dadku asturnaayeen hadda bini'aadamkii baa wada baahi laga dhigay balwada inoogu darsamay balwadaasi waxay keensatay qofku wuxuu haystaa inaan ku filayn wax kasta agtaada yaala inaan ku filayn waxa laga yaabaa maanta lacagta moobilka aynu ku bixinaa inay reer masruufi jirtay 30 sano ka hor 40 sano ka hor lacagta maanta aynu moobilka ku isticmaalno kharashka moobilka aynu ku bixinaa inuu reer masruufi jiray dadku markuu wada baahi noqday isla markaana dhaqaale ku filan baahidan oo dhameeyaan u jirin
waxaa batay laaluushkii iyo musuqmaasuqii iyo wax isweydaarintii iyo ammaanad darradii iyo waxa kan waxaa inagu sii daray maanta khamri qaad xashiishad soomaaliya wax walba hadda waa cabtaa waagii hore soomaali in yar baa waxaan cuni jirtay أنا واحد شو قاري مقالوا إنك واوين الصومالية دو استحلان لوبر يمادان استحلان لوبر بوقاتك قبل كبرعودا سوقلا أيوه هنشري ما أنت أنا وضدا مركان مرو دور إيه طبعا قاري أو ترى الله بايدا فوقات سيدا والله بس ده صعدوا ده ماشي سي صعدوا أنت واجو أنت أنا بريين مرتين أنت قالك الدم مريسيا وحمرك الجاي مادو waxaana Soomaaliya cunaysaa meelibana meesha galbeed ka sii xigtay kaga sii badantay way soo dhaafto hadda magaalooyinka qaadcun yar baadiyaha kullu gobolada aan ka yimi baadiyaha kaliita magaalada dad badan oo waayeelo waaweyn oo wax garad oo aan qaadcunayn baad arkaysaa magaalada waxa laga yaabaa dhalinyaradii jaamacaadka oo dhan oo intooda badan aan qaadcunayn baad arkaysaa laakiin baadiyaha sideetan jirku qayla oo sigaarku cabaa dhalinyartoodina khamriga cabtaa geelasha khamri lagu hor cabaa geelasha Soomaaliyeed baa khamri lagu hor cabaa dhul badan oo Soomaaliyeed leedahay qayd waxaan uga dalay markaa xumihii wuu soo kordhaya iyadoo baahidii sii badanaysa haddana xumihiina soo kordhaya balwadu hadday meesha timaado controlku lumaya markaa dad wax booba iyo dad wax hada iyo dad wax dhacay way qofka balwada ka dambaysa balwadahana dadkii idinka oo madax sidii loola dagaalami lahaa loo joojin lahaa ama loo yareyn lahaa horta waxa qodhay lagu joojin karaa waa diin dadka haday diini gashana uu joojin nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam askar ma qoranin xabsiya ma samaysanin waxba ma samaysanin arab oo khabri ka dharagtana wuu yimi 15 sanadood ee horena way cabayeen islaam laaha 15 sanadood oo islaam leeyay oo la tukanayo oo la soobayo hadana cibaadaadka labada hadana khamriga la cabayay waan la joojinin laakiin mar qura la yiri ka fogaado iska daaya dabeetana eraygaas ku filaaday askarna looguma yeedhin cidna looguma yeedhin dadka hadaynu diin geelino oo wax barro oo iimaankooda xoojino balwadan waynu celin karaynaa waa celin karaynaa hadaynu dawladda ku taageero waa yareyn karaynaa qaanuunku uu yareyn karaa oo ma joojin karo waayo waxay yiraahdaan shay market leh inta shay suuq haysta inta suuqu jiro cidka inta la waayay maayo daan maanta labada ugu waaweyn ee ama saddexda ugu waaweyn ee magaaladiina jooga hadda isugu nimaadno ويلي وين وعدنا وإلى هذا وكبحنا صدق قالوا ما كينيسا ويسوقي بكرة ماشي وين السوق وقعه وكان هدوس كده يكون ضب حتى هدوك يرى وين السوق جرينين سيدو كوتشوك سكر وصدا وين السوق جرينين ما هقف يلا بقى يصدق ده نقوله وين السوق ضدكي أها كاستمرسك زبونك dad kan gadana iyo weynay joojiyaan markaas suuq weyn gagaya dadkana waxay ku joojin karaan hadii wacdi iyo diin iyo tala iyo aqli iyo wax ku kordhino hadii uu u muuqdo inuu ceeb yahay hatta waxyaabaha ka yaabay waxa kamid ah galbeedka nimanka reer galbeed dadka droogooyinka isticmaala waa tabaqada hoose bulshada inteeda mudane haday droogada iyo waxaan isticmaashay way ceebowda marka waa inuu shaqado dhan ka tagaa waa ceebooba inaga imka wuxuu soo socdaa bulshada inta mudane inay cunto oo reerka hadii suldaanku qaylo ama madaxweynuhu qaylo ama sheekhu qaylo inta kale maxaad ka sugaysaa marka yani dadka ama taajirka intii waxays intii dadku eeganayay haday iyadu qayisho warinta yaryare iska daaya عقلي قال ميسو وإن دتك أنت مضاني أي فراغ كقاطع مركزا أنت يريدنا لسي وعدي كرا وحي هوسوسي دادع كرا ددوا وين ملا تلمام باقوف لنا هذا البضاني
waxba kordhin maayo dhowr culamaana waa ku hadalay waxaan ku soo koobayaa xil ballaadhan baa idin saaran ilaahay idin fudaydiyo dhibaha dadkeenna haystaana ma yaree ilaahay inaga kor qaado laakiin dadkii wuxuun samayn kari lahaa ma dhibtaa yarayn kari lahaa waa innaga oo kaashanna ilaahay sharcigiisa iyo dadkaynu u talino waa inu talada wax ka siino la wadaagno oo wanaagga ugu yeedhno way aqbali doonaan haddaynu inagu noqono kuwa wanaagga horseedaya sala allahuma calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد odayaasha dhaqanka nabadoonadan halka fadhiya iyo culimadaba dhammaan waa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa imaadka noo timaadeen oo noo shirhayseen oo halkan madashan fiican noogu timaadeen khayrka inaad dhegaysataan oo culimada kalimaadkooda maqashaan aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa oo idinku ducaynaynaa allah khayrka ha idin waafajiyo waxay la tahay xilkiinu madaxtinimadiinu madaxdu waa nooc waxaa tii nooca aan dhicinba nabadoon isim qolyahaasi lobina laguma kiciyo